السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أصحابتا shabakada Sutguusa blogsbar.com magacii waa Cabdi Daar cashkaadka xiisa badan daawada maanta waxaan ku bari doonaa qaabkee baan iskaga qari karnaa applicationadeena ka muuqda screen-keena si aan uga qarsano asxaabteena iyo xawa dadka noo dhow sida Facebook oo kale WhatsApp-ka qaabkee baan screen-keena uga qari karnaa anagoo isticmaalayno waxaa jira application aad u fara badan oo root isticmaalo marka inshallah cashka waxaa ku bar doonaa qaab ka mid ah qaabkan oo qari karno yacni application ka muuqda screen-keena anagoo isticmaalayno waxruuda daawadayaal markuu horeyso waxaa u baahan tahay application loo yaqaano Apex Launcher Apex Launcher waxaa ka helaysaa Play Store-ka daa u baahan tahay link direct ah waxaan kusoo dhigi doonaa video hoostiisa daawadayaal markuu horeyso waxaa u baahan tahay inta aadan gelin Apex Launcher in aad halkaa imaado settings kadib aad imaado halkay ku qoran tahay accessibility halkaas waaye kadib meesha ugu dambeysa amaanaya Apex Launcher waa kana kadib on ayaa leedahay daawadayaal enable leh kadib waa kaas waaye kadib waxaa furanaysaa daawadayaal application loo yaqaan Apex Launcher u jeedaan Apex Launcher markaa ku dhuftay wuu isbedelay daawadayaal u jeedaan Apex Launcher ayaa noo soo kacay kadib waxaa taabananaa halkay ku qoran tahay yacni hadda dhaxda taabano wuxuu ku soo ceshmayaa yacni launcherkiini hore ee defaultgiisa Samsung ay ku soo ceshay waxaa u baahanahay inaan kan default uga dhigno si oo nooga tagtagin waxaa taabanaynaa Apex Launcher setting kadib waxaa imaanaynaa halkay ku qoran tahay advanced setting kadib meesha ugu dambeysa imaanaynaa halkay ku qoran tahay yacni default ada settings meesha ku qoran tahay default launcher kadib markaa ku dhufano waxaa riixaynaa Apex Launcher haddaad dhaxda taabano waxba ma ka bedelmaayo markaa intaas ay tahay waxaa markaa darabnaa inaan qarno applicationada screen-keena dul saaran for example waxaa rabaa application-ka loo yaqaan inaan qariyo Facebook kale inaan qariyo waa kaas Facebook Facebook-aas inaan qariyo rabaa u qariyo waxaa imaanaynaa Apex settings kadib waxaa imaanaynaa daawada halkay ku qoran tahay drawer settings kadib waxaa riixaysaa daawada hidden apps scroll down soo dheh waxaa raadsaa halkay ku qoran tahay Facebook waa kaas application Facebook kadib riix hal mar save dheh hadda daawadayaal hadda aan ka baxno Facebook oo inaga qariyay halkaas hadda Facebook oo ka tagay Facebook oo qarsan yahay cidba ma arki karto haddaa rabtid sida hadda ayaa usoo furi kartaa tigta ayaa kasoo qaadi kartaa ama yacni hadduu meelaha uu ka muuqdo daawadayaal si Play Store-ka kale haddaa inta aan ka qariyo yacni intana wuu kasoo muuqanaa inta uu soo muuqan waa riixaysaa kaliya kadib remove halkay ku qoran tahay ku dhufanaysaa application-ki yacni wuu remove gareynayaa daawadayaal qaabkaas ayaa markaa ku samayn kartaa kadib haddaa u baahan tahay application waxaa imaanaysaa Google search halkay ku qoran tahay yacni si qarsan waxaa ku qoraysaa daawadayaal wax loo yaqaano Facebook oo kale hadda Facebook soo ma qarin waa riixaynaa Facebook kaas application-keena Facebook waa soo kacsanaynaa oo inoo shaqeynaya daawadayaal marka qaabkaas ayaa u qari kartaa dhammaan applicationada aad jeceshahay inaad iska qarisid haddaa aadaan application qaas oo jiro oo lagu qariyo hadda anaga launcher ku qarnay laakiin application qaar oo lagu qariyaa jiro applications waxay baahan root dadka badan rootna maxaa telefonkooda u qaada waaye inshallah cashirkan inaad ka faa'iideysataan ayaan rajeynayaa ha iloobin inaad subscribe ku samaysaan channelkeena anigoo Cabdi Daar halkaan shabakada Sutguusa bye